xisbiga habowsan ee waddani ta koowaad waxa la yaab leh waxa aan la filaynin waxa mujaahidiintii koosaar lahaa ee lixlo lahaa ee aadan saleebaan lahaa ee aadan shiino lahaa ee xasan yoonis habano lahaa ee axmed dhagax lahaa ee cabdilaahi suufi lahaa goodka qaban maayaan maanta marka aynu maqallo xisbi soomaalilaadah oo doonaya inuu dalka xukumiyo ayaa xamar laga soo hambalyaynayaa oo ay xamar soo taageeraysaa oo xaflada loogu qabanayaa adeer raggii dalkan u dhintay luxudkuu la soo kacaya maanta cabdisumuuri iyo lixle iyo ina macali haaruun iyo aadan saleebaan iyo aadan shiin iyo koosaar muxuu noqonayaa halgankii ay ku shahiideen marka xamar xisbi jooga Soomaaliland looga talinayo ma geyno xamar taladeeda ma aqbalo waxba nagama dhaxeeyaan wixiina dhex yaallay kamaanaan bogsan nooma garaabin xamar qarnimadeeda way diidan tahay ninka looga talinayaa isagay u taallaa shacabka Soomaaliland waa xukumi doona taa ciidkaasaan ku gudoomiyaha waddani oo gudoomiyaha baarlamaankaana oo ninka saddexaad ee dalka oo bartakoolka ku leh ka socon mayso oo sawirro la isu geeyay iyo kulmiye isu geeyo sawirrada kulmiye jaraa'idka istaar ma soo saaro Nairobi jaraa'id iyo xarun kubali waxaan Soomaaliland ilaahay baa wata khiyaamo kasto loo galay shaqo kasto loo galay ilaahay baa fashilay quratan ilaahay baa fashilay waana niyad wanaaga iyo halganka iyo adkaysiga ummadda Soomaaliland waxay nagu meeraysanayaan oo arrinteena marba meel ka soo galaya waa farmaajo iyo dawladda Muqdisho sababta ay u doonayaan ee inoo ducaynayaan ee marba u leeyihiin xusbi hebel iyo waddani baannu taageersannahay waxa ay og yihiin haddaynu maanta marxaladdan ka gudubno Somaliland muddadu in kastaba ha qaadatee qaran madax bannaan oo innakiyo Soomaaliya waxba laysugu darin baynu noqonaynaa laakiin maxaanu ku kala duwannahay xusbiga waddani waxaanu ku kala duwannahay annaka xusbiga kulmiye kuma jirto cid u beerdhigaalaynaysa Muqdisho annagu imka ummadda waddani iyo madaxdooda niman Soomaaliland darisa oo taariikh wanaagsan ku leh oo halgankii qaybta ugu fiican ku leh oo muddo kala oo dalka qaybtooda la warin nada filmaayta Cabdiraxmaan ilaa maantu ka hadilay waxaan aqoonsanahay inay Cabdiraxmaan u dheertahay wax ay u dheerihiin samaysigii xisbiga wadan uu samaystay galidii doorashada uu galay in aanay ka niyad ahayn Soomaaliland iyo burburkeega uu samaystay marka hore waxaan aqoonsanahay waxa uu halkan kula jiro ee uu ummadda markuu yimaadaba kuleeyahay inuu adduun weynahana kuleeyahay raggii hore gobta ahaa ee doorashada geli jiray markaan leeyahay gobta qaadan jiray de waxa jira qofku waa inuu qanac yeeshaa qaadan jiray waxa jira ama muxuu ahaa waxa soo baxa halkaasay ku ari jireen tooda dambe ayay ka tashan jireen wuxuu Cabdiraxmaan yiri uu eedeeyay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waxa weeyaan gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye waana wasiirka arrimaha gudaha xilka nabadgelyadu ee qarankan isagu saaran yahay shacabka Soomaaliland maxay tusaysaa in aad kali u timaadaan dalka Kenya ma waxay tusaysaa badda in arrinteedii aanu dhamaysan karin wax hore noo ahaan jirna maaha wax nagu filan Muuse dadka siyaasadda Soomaaliland indhaay waxay yiraahdaan xisbiga waddani ama axsaabta mucaaradka dawladdu way la xisaabtami lahayd haddii aanu xisbiga u cid jeebka ugu jirin arrintan maxay uga jawaabaysaa anigu nin jeebka kale ma taasi waa aflagaad waa la yaqaan aniga nobody can cash me weligeey ma cash garaysan